marka horta dhaqan ahaan isweydiin male sida sharcigu uu qabo oo sheekhu noo sheegay inaad disho deriskaaga ama qof muslina ama gaalba ha ahaado aan kaa gardareen in la dilo oo la hunguriyeeyo wixiisa sida uu sheekhu u sheegay buu u dhigayaa xeerka dhaqan lama ogolo qof bala in gardarre lagu laakiin dhigaanagu waxay maqlayaan sida uu sheekhu ka dhawaajiyey in iska daa kuwii Ethiopia aan wada ahayn dadkan lugaha ku yaacaya ee socda ee dadka qaxootiga ee iimaanka beele beerihiisa ka yaacaya badaa ku dhammaanayo ee lugeeyay ee u tegay boosaaso media inta la soo fadhiisan la leeyahay waxa loo lugeenayo loo socdo waa badan badba waxba kama oga dadkaas war Oromo marta dhul Soomaali umana baahno mana u socdo horta ninkii ilaahay dhigiisa geliyay wax dhigiisa galaani inta aqli qabtaan oo la hadlaynaa Oromo ma doonayso marna laakiin garad dadka Oromada ah oo propagandada wada iyo dadka Soomaalida propagandada wada labadaba maxaad ku waaninaysaa waxaan ku waaninayaa labadaba Oromana ma doonayso inay dal Soomaaliyeed u jeedo iska badaa badan noo dhaweyn umana baahno dalkeeda dad kala qaada Soomaalina war Oromo kuguma soo socoto dalka kaama rabto xoolana kaama rabtay badna kaama rabtay propaganda dadka isku jabinayo kala joojiye Oromada iyo Soomaalida wada noolaanshahoodii iyo isku duubnaanshahoodii maxay sidee ahayd ummad nooyay ahayn taalismayo weydiinayo 10 jeer iyo ka badan iyaanu gudbinay inay dadkan walaalayiin inay dadkan isu seediyiin inay dadkan isu abtiyiin inay dadkan diin wadaagaan inay dadkan dhaqan wadaagaan inay dadkan xataa muuqaal iyo maqaar wadaagaan inay dadkan yiin dad dhareer wadaag sidaan hadda ka horaba soo sheegnay huban asala huban isla soo aha oo cadawga iskala soo horjeeday wada halgamay wada socday hadda ka horaba xajaladaa huban bay weligood ahaan jireen xag cadow xag nololeed iyo xag diinba garan mayna annaga waxaan hadda yihin garanna mayna waxa keenay meel ka timidna garan mayno allana ha laga baqo noloshuna war siyaasaddu waa tegaysaa iyagu ma tegayaan halkaas dhulkan waa wada leeyihiin ilaahay baa ku wada abuuray midna mid ma marin karo midna mid kama kaxin karo yaan dambi iyo halligaad la gelin yaan beeni dadka dhumin dumar kale ilaasaya qaylinay lagama dhirgin miyaa daawashada dadka qaxay dalalka dumay dalalka baaba'ay deriska iyaga Yemen Suudaan Soomaaliya waa soo martay waddamadii horumarisay Liibiya Central Africa war derisyadanada maan eegno waddamada burburay dhibaatada haysata balanbalka haysta naagta dagaalka u ilaalaasaysay berri wiilkan dagaalka ugu yeedhaysid adoo isbaara ku dhiganaya dambiishaadu u baaranaya idka celisay ma jirto dawladda la ma jirto waddanka waad burbursay dawladdaadi war dadkanow aqli Allah idin siiyo wixii idin soo maray aragti idin ku filan
waxaanu leenahay xaggii xagga nimaanan arkayn ma jiro war haddii East Africa waxa naga lumay qaabkii dadnimo anuu u sheegaya labadan qowmiyadood ee walaalaha ee diriska waxa naga lumay qaabkii bilow'aadminimadii iyo dadnimada naga lumay sababta oo war annaga haddii la yidhaahdo qof baa madax noqday war yuu yahay xaggee ku dhashay gobolkee ku dhashay yuu ahaa qabiilkiisi yuu ahaa qowmiyadiisi wareedhaa haddii nin hooyana dhashay gobolna ku dhashay qabiilla ka dhashay uusan xukumeen xaggee lanuga keenaa wax lan xukumay ciidku ka soo dhacaya caddaan baan soo kiraysanaa hay war Oromo madax ra'iisul wasaaraha Oromo ma ahay waa ra'iisul wasaare Ethiopia dooran waxaa la rabi lahaa inaad chance la siiyo labada qowmiyadood ay chance siiyaan ee loo baahan yahay meel walba taaganna waa sida Soomaaliya hadina laga doorto waa sida Ethiopia hadina laga doorto waa sida xagee lanuga keenayaa qofan hooyo lahayn qofan gobol lahayn qofan qabiil lahayn qofan qowmiyad lahayn xagee nooga imaanay ma idinku naga soo dhacay dadkan waxaan u sheegaynaa East Africa ku nool dadnimadii baa naga lubtay ولا الله الله قبل ولا الإسلامات كله إيه اللي غير إن الدنيا كنا ولا نقول فلان بنا سنة إنه ولا بكون فلاني فلقنا ولا بدبلا نجربا بترول كنا قال ربا بترول كنا لا قرن ربا بدينا لا تجربا وربدوا بيها قصبة هذا ناني بقبلنا حديد دكانة ترتوضا وسن لهين خستما كايب سدا دكان كم حد كفل بدواي مسورم بدواي مسيتوبي بقول يسمتك مليون كاستمون والله كبريا تايدا ايميل قال تايدا ايوه رهدي اين والله لنا هذا بكم مالك الله كله وانا يتوبيان مركان فكار Oromo marka qaadana badna waayna naga waxa jeelaysan badna looga jeedo si fiican baad u sharaxday aad baad u mahadsantahay waqtigii aan nagu yar Dr. Yusuf waad maqlaysay in ugaaskana wuxuu ka digay inaan dagaal iyo gacan ka hadal iyo colaad la abuurayo cidna san faa'iido u lahayn waxaan khasaare ahayn waxba laga dheefaynin wixii khilaafaadka jiro oo tuhna jirta wax la tirsanayo illa wada hadlo sidii dhaqanka ahayd sida caadadii ahayd ayuu ka cadeeyay dhaqan ahaanna kama fogo sida diinta ay dhigayso ayuu isaga halkan ka cadeeyay bal hadda waxaan u gudbaynaa arrin degdeg ah oo nagu soo kordhay shalay waxaanu maqalay oo Arbica ah in deegaanka ee gobolkan Harar weerar ay ku soo qaadeen nimanka la yiraahdo Liu Booliska ama Liu Haile oo ka tirsan qaybtan Soomaalida deegaanka Soomaalida halkaas ay ku laayeen dad gaaraya ilaa maxaan ku raahdaa 30 qof oo saaka aan ku arkaynay baraha bulshada meedadka la isdul saarayay bal arintaasi dagaalkan hadda labada xuduud wax colaada hadda kama socdaan maxaa ku soo aadiyay dagaalkaas xilligan hadda ila qaado maxay kula tahay waxa ila tahay horta dagaalku xilli kastaba dagaalima fiicno wixii dagaalka iyo sunta daadinayna inta ugu badan systemkii hore dadkii systemkan hadda nidaamkan hadda iyo dawladda cusub maslaxadoodii ka taabatay oo tii horena maslaxa ku qabay baa horta wax wada runtii bixitaanka Cabdiile oo meesha ka baxay waxaan u maleynayaa in wax badan uu dhulka dejin doono laakiin mushkiladu markuu ninka madaxa markuu baxo jirka intiisii kale wali way shaqeynayaan inta la sii saxay marka waxaan u maleynayaa haraagi uu qorshooyinkii marka hore yaalay in weerarkaas uu dhaco baan u maleynayaa inuu mid kamid yahay annaga laakiin waxa muhiim noo ah walaalayaal wixii dhintay way dhinteen inta nool aan badbaadsan intii dhimatay shalay halkaas lagu laayay waan uga tacsiyeynayna inta dhimatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala u naxariisto inta ehelkoodii uu ku dhintay Ilaahay subhanahu wa ta'ala sabr iimaan ka siiyo
weliba waxaan u tacdiyana dadkii ka sii horreeyo tulli guuleed lagu laayay intii dhimatay ilaahay subxaana wa tacaala u naxariisto wixii ehelku iyo qaraabadoodu ka dhinteen ilaahay subxaana wa tacaala sabar iimaana ka sii ikhwaani marka waxaa la rabaa dhimasho kale waxba uma tarto waxaa la rabaa marka inta nool in la badbaadiya caqli ah caqliga saliimka wuxuu leeyahay horta inta nool aan badbaadsanno kadib aan ka wada hadalno system maxaa la yidhahda dhaqameed baa jira system diimeed baa jira oo dadka lagu kala xaliyo wixii dhintay iyo wixii dhaawacmay iyo lagu kala tago lagu xisaabtamo ayaa jira oo weligood dadku ay ku dhaqmi jireen bilxaqiiqa intaa haddii ay wacafaci weydo system dowladeed baa jira dowlad baa ka jirta laakiin annaga shacab ahaan waxaa la rabaa qof walba qofkii qof badbaadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadiisu ku sheegay qofkii qof badbaadiya wuxuu u dhigmaa qof bani aadam oo dhan badbaadiyey qofkii qof dilana wuxuu u dhigmaa qof bani aadam oo dhan dilay marka waxaa la rabaa dhibaatada shalay dhacday weliba qowmiyadda oromada anoo la hadlaa waxaan leeyahay dulqaad fara badan ha la sameeyo war ammaanadii ummadda etoobiya maanta idinka idiin dhiibatay ammaane qof aan dulqaad lahayn ma wadi karo ammaano weynoo lagu dhiibo culeys badan qofka aan dulqaad lahayn ma wadi karo adigaba masalan hadduu maanta 1 milyuun boorso ka buuxda lagu dhiibo la yidhahdo boorsadaas ilaa wiigan iyo ilaali intaad bannaanka istaagta dhagax ma turtuurays sababtoo waxaad ogtahay waxa aad wad intay la eg tahay waxaad raadinaysaa oo sidaad u nabadgali lahayd ummadda ormada marka waxaa leeyahay nimayo ammaano weyn baa ladiin dhiibtay mas-uuliyo weyn baa la rabaa inaad muujisaan dulqaad weyn baa la rabaa inaad muujisaan qofka maxaa la yidhaha mas-uuliyadda haya wax baa laga sheegaa waa la caaya waa la aflagaadi way dhacdaa wixii oo dhan haddaad leedahay waxba lagama sheegi karo waxbana lama taaban karo magacaygana lama sheegi karo markaas mas-uuliyaddii ma qaadi kartid waa macnaheedu marka waxaa la rabaa mas-uuliyadda inay qaadaan qof kastoo soomaali ah qof kastoo etoobiyaan ah meesha uu joogo inay ku badbaadiyaan ayna marnaba dhihin tuuladaas ayaa dadkayga lagu laayay kuwan caasimadda iyo magaalooyinka waaweyn baan maxaa la yidhahdaa isha xunstusi waa xaraan ma bannaano dadkaas kula degan waxba kuma leh meeshaas kuwaa iska dhaafi soomaalidoo dhan baan waxba ku lahayn dilka shalay dhacay soomaalidoo dhan baan gacan ku lahayn waa in yaroo murtaziqa ah intaynan adiga ku dilin soomaalidii bay dhammeeyeen horta soomaalida markay ka faraxasheen bay adiga ku yimaadeen marka waa murtaziqa caloosho shaqaysiyaal waaye lacag baa wadda kii bixiyo unbay u shaqeeyaan iyagu haddaad ka badan siisona xag kale u jeesanayaan kuwaas marka qofna ma matilaan dadkaasoo kale labada dhinacba wixii xagga ku laayana waa saasoo kale wixii shalay wax laayana waa saasoo kale marka ikhwaani marka intii caqliga lahayd marka inay u hoggaansanto kuwaas mujrimiinta ah ficilkii xagga laga sameeyaba nin kaloo muslin ah nin kaloo miskiin ah nin kaloo shaqaysta nin kaloo nabadda ku nool in nabaddiisa wax laga dhimo wax aan caqligu qaadanaynin diintuna aan yeelaynin nidaamka caalamkuna aan yeelaynin ogaada xisaabtanka weynoo ilaahay ka sokow waddanku markuu dego xisaabtan baa imaan doona ogaada sidaa dadku ma dhammaanayso xisaabtan baa imaan doona marka qof walba feelkaaga khaaska ah ku dadaal inuu nabad galo marka waxaan rajaynaya insha allah in laisku dulqaato la sabro maxaa la yidhaahdaa ilaahayna la tala saarto ilaahayna la baryo inuu balaayada naga dejiyo qof walban inta tabartiisa uu ka shaqeeyo siduu u damin lahaa dowladdu waardiya meel walba kama noqon karto laakiin shacabku waa inuu waardiya ahaada shacabku waa inuu dowladda la shaqeeya shacabku waa inuu isku duubnaada shacabku waa inuu midnimada la yimaada cuqaashu waa inay istaagaan waxaan la hadlaya culamaa udiinka ismada cuqaasha akhyaarta abwaanada mutacalimiinta dadkaas hadday wada aamuseen saaxada waxay u banneeyeen mujrimiinta idinku markaad hadli weyseen dad hadlaa yimid idinkii booskii baa loo banneeyey mimbarkii baa loo banneeyey mimbarka qofna ma saarno hadda mujrim walbaa fuuli marka safiih war kastaa fuuli doqon kasta waxba kala garanaynin mujrim kastoo la kireystay baa fuuli muxuu fuuli because ehelkiisii baa ka baqan ehelkee waxaan leeyahay culamaa udiinkii ismadii garaadadii ugaasyadii suldaanadii iyo mutacalimiintii mutaqafiintii dadka waxgaradka ah inay istaagaan oo wanaagga ka hadlaan oo dadka isku keenaan baaraka allahu fiikum aad baad u mahadsan tahay fadiilatu sheekh garaad suldan waad maqlaysay sheekha sida u dhigay dhibaatadii shalay dhacday weerarkii shalay ee lagu qaaday magaaladii shalay dad 30 qof ay ku dhinteen
baaq ayuu wuxuu u jeediyey shacabka oromada ee dadka ay ka dhinteen inaynasan sameynin wax aargudasho ah wax dhaqaaqa jawaab celin ah inay sabraan ay dul qaataan halkaasna sheekh wuxuu ka caddeeyey dhibaatadaas dhacday ee shacab weynaha soomaalida ee deegaanka ee shacabweynaha Ethiopia mas'uul kama aha bari bay ka yihiin dad gaar ah oo fitnada abuuraya oo isbedelkan iminka yimid dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaankan ka soo horjeedo ayaa arrimahaas sameeyay buu yiri marka hal isku dulqaato walaaltinimadii iyo diris wanaagii iyo isdhexgalkii meesheedii ha ka socdo buu yiri adigu marka garaad ahaan waxaa jira dad khaldan oo fikrad xun aaminsan oo oromo ah aad dhici karta ama inay ficil sameeyaan ama inay baraha bulshada intay fariistaan ee yiraahdaan Soomaali baa nagu duushay duulaan baa nagu sameeyay waa lana xasuuqay si aanan u oranin dhalinyarada oromada isticmaasha baraha bulshada kullee dad waaweyn akhyaara ma oranayaan dadka noocaas oo kale waxaa maqlaya shalay in rag qaarkood arrimahaas ay ka hadlayaan arrintaasi si ayna u dhicin maxaad uga hortagaysaa oo waanaad u jeedinaysaa dhalinyaradan ee baraha bulshada ka hadlaysa ee oromada in arrintaasi aan faahfaahinin meel fog ayna gaarsiinin horta arrinta caaqil cilmi badan oo ilaahay cilmi siiyey baa iga hor hadlay oo waxba iima reebin waxaananu ku hadlaaba iska yar waayo hadal markuu hadhaa la hadlaa laakiin markuu hadal dhammaaday wax laga hadlaa iska yar waxaan taageersanahay aqoonyaanka jasaka allah ilmi aqoon leh isugu daray isagaasaan taageersanaa taasaan iibsanay anigu waxaan leeyahay uu halka kelmada ii halay ah oo taabo uu isagu inta badan ka yidhi oroma maanta wax badan bay tiri annaga rarka dhabar weyn baan leenahay annaga hala dushanada hala fuulo Ethiopia oo dhan ay tiri dhabarka u dhigata dhibka dhaca sabir ewel baa lagu ogaay ha ku darto sabir kale ha u sabarto xilka maanta ayaga lagu eedeynay yayna ka dhiidinin ama ka galgalanin ama ka gilgilanin eedda la eedeynay ayagaa qaatay oo dhabarka saartay muf bay usoo hureen inay qaataan eed argoosiguma bannaano sida hooyadu ay ugu sabarto cunugeeda ha u sabraan wax kasta hadlay wayna dili karin xataa nagu xun dhihi karin inaan wax xun nidhaanana naguma abo oroma hataan hayo inaan gacan qaanoon argoosanana naguma bannaano inta أقولانكو شيخو يدوي أقولانكو جزاك الله تاس أما كويتان يعني ما أنت أبر وين تش أنت أريد أنه هنا أول بس صبر بطنين لكن كي والله والله أبنى الله نقرب أنا قاعد بريدن السلام عليكم Dr. Yusuf adiga ayaan kugu soo laabanayaa barnaamijkeenana wacyigelinta iyo baaqa nabadeed aan u jeedinayno labada qowmiyadeed ee oromada iyo soomaalida ayaan si weli aan ku guda jiraa bal arrintan soomaalida iyo oromada wax maanta iyo shalay bilowday ma aha dhowr sano ayay maraysaa dad fara badan ayaa labada dhinac ku dhintay marka aad qiyaasto dhibaatadan aan dhammaanaynin oo colaadan marba hadday qabowdo haddana sii kacayso maxaa saldhig u ahaa maxaa sal u ahaa oo la isku haystaa dhibaatada mar timaada marna ay qabowda marna socota maxay u dhammaan la'dahay halkee cudurka halkuu ku jira waxaan u malaynayaa cudurku wuxuu ku jiraa gacan saddexaad baa ku dhex jirta gacan saddexaad markay kugu dhex jirto labada qof wax ma samayn karaan sababtoo ah gacantii saddexaad baa wax qasaysa hadday caawa heshiiyaan hadday maanta heshiiyaan caawa ayaa wixii suntii la daadinaya wax la gubaya
haddii barri heshiiyaana saa dambe unbaa wax lasii hubeynaya marka gacanta saddexaad ayaa ku jirtay waxaan rajaynayaa gacantaas saddexaad mar dhow inay baxdo xargaheedii aad bay u gogo'een dad hadda ajensiyaal oo marar hore wax qaato oo tababar ku qaato oo lagu talagalay haraa waa iska jiraan haraagii ka soo haray waxaan u malaynayaa in insha allah dowladdu culeyskeedii iyo nabad sugiddeedii inta ugu badan inay hadda xagga u jeediso gudaha inay islaaxiso waa shaqada ugu weyn oo dowladda federaalka aan ka sugayno ra-iisul wasaaruhu markuu dariskoo dhan islaaxiyey arrin fiican buu qabtay arrintaa markuu ka faraxashay caalamkan uu sumcad ku helay waxaa laga rabaa marka hadda gudaha inuu islaaxiyo awoodda dowladeed inuu gudaha dhigo xaqiiq qof walba gacan adag baa laga rabaa hadda maadaama fowda meelo badan ay ka jirto gacan bireed inuu qaanuun ku shaqeeyo cadaaladdu inay shaqeyso dadkan ay ogaadaan in maxaa la yidhahdaa cadaaladdu inay dheer tahay gacmaheedu inay dheer yihiin oo halka ay joogaan ay ugu imaanayso waxaan u malaynayaa dowladdu hadda ka hor xargihii bayna wada arkin oo wada fahmin waxay raadinaysay marka meelaha xarguhu ay ka lalmadaan oo ka soo socdaan bay raadinaysay hadda wax badan way heshay dowladdu marka inay ku dhaqaaqdo ficilkii marka dabargoonta ah daahirinta ah maxaa la yidhahdaa joojinta ah gacantaas mujrimka oo saddexaad inay labada shacab inay ka dhex qaado gacanta saddexaad ayaa ah bilxaqiiqa shacabku isma dagaalin waxbana uma dhexeeyaan anigu waan ku wareegay intaasoo gobol 8 gobol baan ku socday hadda markaan ku socdo oo dhanba arrintan un baan u socdo ugu badan shacabku waa sidoodii markaad hoos ahaan u wareysatid bilxaqiiqa colaadi ma jirto dhibaatana ma jirto waa dadkii isdhalo isla deganaa oo maxaa la yidhahdaa kala guursado isla cuno oo isla noolaa iyagu dhibaato weyn dhexdooda ma taalo waxaan media meelaha ka qaylina ajensiyaasha hafirinina iyagu diyaar bay u yihiin culmaa u diinka in la isu keeno cuqaasha in la isu keeno la wada fariisto la duceysto qur'aan la akhristo ilaahay la baryo la isku calool furnaado dhibaatadana marka laga takhalluso markii wanaagga la keeno dadku ay isku furmaan oo maxaa la isdhex galaan kadib marka wixii dhiig ah hadday dhinaca ziyaado u yihiin sidii loo maxaa la yidhahdaa la kala qaadi lahaa loo hagaajin lahaa in loo jeesto diyaar bay u yihiin waxay marka arrintu ay su-aashaada haddaan ku noqday waxaan u malaynaya gacanta saddexaad ayaa weli go'in weli bixin taas unbaa wixii haddana keenaysa inay wax maqallo istiin laakiin arrintu aad bay u yaraatay sidii waagii ma aha meelo go'an waaye oo dowladdu si sahlan waliba arrintu ay ka gaari karto waan rajaynaynaa insha allah mar dhow inaan la maqlin dhib baa labadan ummadood ka dhexdhexay inaan la maqlin insha allah waan rajaynaynaa waana u jeednaa hadda insha allah mar dhow anigu waxaan rabaa labada ummadoodba inaan haddana aan ku noqdo culmaa udiinka isku keeno aan la socdo bilxaqiiqa culmaa udiinka markaan dhammaysano inaan cuqaashii iyo akhyaartii iyo isimadii inaan isu keeno yani aan dhammeeyo tuulo inaan u dhammeeyaan rabaa bilxaqiiqa ilaahayna subxaana watacaala hanoo fududeeyo tiim baana ku nahay arrintaasna rabaan hadda inaan u istaagno shaqana ka dhigano ilaa aan arrintaa ka farxalano inaan istaagin insha allah barnaamijkeennana yar 15 daqiiqo wax ka yar baa noo dhiman garaad waad maqlaysay sheekha wuxuu yidhi gacan saddexaad ayaa ku jirta arrintaa wax badan baa laga hadlay aqoon-yahaninta iyo activistiyaasha soomaalidu way ka hadleen oromadu way ka hadleen dowladdii way ka hadashay marka bal dadkan dagaalamayay oo dhiigooda daadinayay maadaama labadan qowmiyadood colaad aan dhexdooda jirin ee gacanta saddexaad ay ku jirto gacantan saddexaad dadkoodii ma dhimanayaan iyagii ma dhimanayaan waxaa dhimanayaan labada dhinac dadkoodii baa barakacaya hantidoodii baa burburaysa naftoodii bay dhimanayaan marka ilaa goorma arrintan ayay sii soconaysaa maxaa looga waantoobi la'yahay dhibaatada arrintan dib inta loo fadhiisto la fikiro gacantan saddexaad ee ummaddan isku baabi'inayso war danta nooguma jirto sababta labada dhinac dhanka oromada iyo dhanka soomaalida arrintan maxay akhyaarta uga fadhiisan waayeen حتى هدي فدرالك أرنتان وكا آموسو لبدا ديغان حتى هدي كا آموسان دادوينيه كالي محي أرنتان وكا قابسدين محي عقابت دفور تاغن إني أرنتان لبدا بلشو حوك أساري واينا وديغان سي سعودو محا ساوي وسؤال وناكسن بسم الله
ظاهروا وعمشة تنيا الله سؤاشة تلك سؤاشة قاعن صدحات يا قاعن أفراد باكوجر قاعن صدحات يا قاعن أفراد باكوجر قاعن تصدحات والله حلا قورعي أو قلقلانيسو إديه دادك سي كسر رفانيسو وسياسة سي بختيسو قاعن أفراد وادوني خاطر شلي ومدى قدايي وما انت صعيدي وما انت كقاضني تان وحا قبان كرمانتا سيدا الشيخ وعرباوي أود الدولة دولة هسيجرتو وخير الله سيدي ويش قيس ودنكو بربر قرق وصار بيسو عليس وكلا تجي ما انت وحا موقتا هملا إثيوبيا اللي يلاهدو ايه هوري من دربان حدا يمشو خوكرا إلى ساقا يخان بالي كوا ما انت توقت كسي دمبايسا سياسة الرفانيسا هذا أمد خور رفانيسو وحي قاديسا مجرت هذا وكا قلت يلكي وكا قبل العين لكن توقتي ياتكي دعسو قعنا فراطا تان هذا يولدوا إن الشعب كالدفاع دا يضع اسكالها حالة يحوك وحياسو إني دولة الدفاع دا ومدى الشعب كا دولة كالي صعب شيخ بانا وحقا بنكرن oday baana wax qaban karin aqal baana wax qaban karin ninka qoriga haystay burcadka aftiisu beddelaya sheekhu waa nabad ka soo horjeed la sheekuna nabad buu raadinaya isna waa nabad ka soo horjeed marka opposite-kiisii waa hadda waxay u baahan tahay marka rafashadan gacan bir ay u baahan tahay in ummadda nabadda resolution ku soo celiyo waayo sida adduunkuba u dhigay ama United Nations u yaal dadku ama negotiation uu soo fadhiistaa wada hadlaa oo ka heshiiya on hand mediation buu u yeertaa oo mediation baa heshiisiiya haddii la waayo waa resolution عن دولتين أضبط سنتها جراد لبدي نبى صدق شيء مو يعني وحمد ما وقتي أيها قبل ها الشيخ يوسف دكتور يوسف واد مقلس جراد كا وحيريد عن صدحات ما هاولي وقعن أفراد قعنتي صدحات أنو قرنيني هي قعن كلا أفراد أيها جرتابر أو لونية أو إن عنا أرمانا أي قبان سوماليدون أي قبان dadkoodan aan ka naxaynin dantooda iyo maslaxadooda iyo noloshooda mooyane wax kale aan ka naxaynin buu yiri marka ummadaas ayuu yiri inay dawladda federaalka iyada ayaa dalka mas'uulka ah labada dhinac inta oromada ku jirta fitnada wadda iyo inta Soomaalida ku jirta fitnada wadda labadaba inay dawladdu baaritaan ay ku sameeyso sirdoon bay leedahay dawladdu meesha cilada ka socoto gacantii saddexaad awoodeedii way burburtay oo wax badan way burbureen sidii hore ma aha inta yar dawladdu inaysan ka seexanin si gobolka nabad iyo xasilooni iyo wada deganaansho loo helo dawladda ayaa xil saaran buu yiri arrintan inay gabagabayso ee afjarto waxaan barnaamijkeenan maanta aan ku gabagabeynaa marka hadday waxa sheegtay shakhsiyadaada inaad wax sameyn rabtid Allah ku garab galo balse dhibaatooyinkan halka ugu dambeeyo halku ku jira halka muxuu yahay oo dhibaatada lagu afjaro taas ayaan ku gabagabeynaa barnaamijkeena labadiina baan siinaya muxuu yahay halka dhibaatada lagu gabagabeynayo horta ugaaskan ku waqsanahay ma sha Allah si fiican buu kala dhigay runtii waa gacanta afraad baaba hadda dhibkii ugu weynaa ah
xalku wuxuu noqonayaa marka ummaddu ay ogaato wanaag iyo nabadgelyo inay khayr leedahay xumaantu inayna waxba taraynin qofna uusan qof riixi karin qofna uusan qof kale ka takhallusi karin aargudsi balaaya mooyeen wanaag inayna keenaynin nabad baa naas la nuga leh baa la yidhi marka nabaddaas uun mooyeen xumaantu inayna waxba khayr lahayn marka ummaddu ay ogaato gacantaas afraadoo ku dhex jirta ile gacantu cirka kama timaado ummaddaas unbay ku dhex jirtaa ummaddu markay iska soocdo dowladda la istaagto garab la noqoto nimankaas maxaa la gacantaas afraadna laska fogeeyo oday walba cunugiisii gacantii afraad ah hadduu qarsado wanaag lama gaarayo annagoo dhan mushkila iyo rafaad baan ku jirayna habeenkii waan qarsanaynaa maalintii waan qarsanaynaa habeenkiina way baxayaan wax bay baabi'inayaan marka laakiin ummaddu hadday midowdo iyadu bilxaqiiqa dowladdana la istaagto garab u noqoto dowladdu markaasay awood heli marka taas baa nabad lagu gaari karaa baa leeyahay bilxaqiiqa qof walba inuu shakhsiyan mas'uuliyaddan qaato uusan qofna ku hallaynin abiyi baan imaanaynin waxba kuu keeni karin ninka gobolka haystaan waxba kuuna keeni karin qof walba mas'uuliyadda nabadda inuu isagu qaato doorkaaga waxa aad ka qaban lahayd adiga cunuga mujrimka oo aagan joog inaad sheegto inaad isaga iska fogeyto inaad waaniso inaad ka celiso inaad qabato inaad odayaal u keento kulli waa adi shaqadaadii shaqada abiyi ma ah taas marka qof walba mas'uuliyadda inuu qaado mas'uuliyaddaana fuliyo ilaahayna la wada baryo allana loo jeesto ilaahaygana laga baqo nabad baa lagu gaari karaa baan isleeyahay baarakallah mana fogo bilxaqiiqa aad bay u dhowdahay insha allah wayna jilicsan tahay sun kale iyo wasa kale haddaynu ku darsamaynin intii dhulka ku daadatay si sahlan baan ku dhaqaynaa biidnihi tacaala garad waa maqlaysay sheekha xalka dhibaatooyinkan sanadooyinka socday qulqulaya sii soconayay maxaa xal ah daawadeedu maxay tahay waxa uu xal ah culimada uqaasha nabadoonnada odayaal dhaqameedyada iyo dowladduba rag iyo dumar mee ililaaska dagaal inta la daayo nabadha loo istaago gacantan afraad ee tuugta waxaas ka qaban kara ummadda abiyad sabujo bolis maaha xafadu ma aadaan waa u yeedhay wax alla wixii dhib qabow kaale xafiiskaygaa ku furan iridayday maw aniga ila kalaam ila hadal wax ii sheego oba tiis holkaas ku dhamaatay bolis ma aha xaafadda uma ilaali guriga marka ninkii lahaba xaaqda ku xaqaysa mali guriga ama ku dhaqaysa abiyi waajibaadka uu leeyahay nooc walba oo tahay waa ugu yeedhay ra-iisul wasaaruhu albaabkaygu cid walba u furan yahay udheelkaa iyo dukaankaasu kula mid yahay kaale iga iibso waxaad doonaysa kii taadiida isagay u taabo ta labaad ummaddaas ka qabanayso lagu eedayn maayo ma dhihin qobel hebelow kaale oromoy haddaan kaa dhashee kaale galbeed baan ku dhashee kaale bari baan ku dhashee ma dhihin wuxuu yidhi wixii etoobiya oo magacaasi taabta kaale albaabkaygu waa ku furan yahay kii kaa diido dowladdu ha jirta meesha laakiin ummad baa iska qaban karta tuugada haddii qaadaha la qariyo dowladdi meelay umarta male taa dhamaatata soomaaliya maxaa dhamaad ku diiday taa qaranay dowlad ugu jiraan shardad bay qabaan tabar loo heli maayo etoobiya dabeecaddaa ma lehe ha iska qabato tuugada shalay budhcad dowlad isku sheeg budhcad ah qorneello budhcad ah oo goreello ah ay sameeyeen
يينا كل فننا هسك قبطان انت سمان دايا daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan idin ahaantiinba meel walba aad daafaha dunida nagala socotaan barnaamijkii aad naga daawanayseen barnaamijkii aad ka daawanayseen Oromia Media Network oo dhanka satellite iyo dhanka telefishinka iyo qaybtiisa Facebooka halkan ayuu ku egyahay barnaamijkeena maanta waxaa nagala qayb galay Dr. Yusuf oo degan dalka Ingiriiska oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada sidaas oo kale barnaamijkeena waxaa maanta nagala qayb galay Garaad Ahmed Garaad Qumbi oo degan dalka Australia isagana ka soo jeeda qoomiyadda Oromada anigoo barnaamijka idin daadihinaya daahir mudiir oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada iyo dhanka farsamadana waxaa naga caawinayay Mahdi dhammaantiinaba aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaa mar kale aan mahad u celinayaa martiyaasheeda sida quruxda badan inooga aqbasheen ka soo qaybgalka barnaamijka aad baad u mahadsantihiin barnaamijkeena maanta aanu ka hadlaynay xaaladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya iyo isku dhaca Oromada iyo Soomaalida ka dhaxeeyay halkan ayuu ku eg yahay waxaan isku soo laaban doonaa barnaamij kale oo xiiso badan aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh